amarale o kalutala amarale amarale waride irnopati amarale amarale ubadayatilo amarale ubadayat bandhig dhaqameedkan oo sanadkii mar lagu qabtay magaalada Khartoum ee caasimada dalka Suudaan ayaa waxaa sanadkan ka qayb qaatay in ka badan 86 dawladood iyadoo sanad walba ay soo qaban qaabiyaan bandhigani golaha saaxiibtinimada shucuubta ayaa waxa goobta lagu soo bandhigay bandhig dhaqameedka jaaliyadaha ku nool Suudaan goobjoog ka ah madaxda safaaradda Soomaaliya ee Suudaan jaaliyada iyo waliba qaar ka mid ah ardayda Soomaaliyeed wax ka barata dalka Suudaan iyadoo jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan Suudaan ku soo bandhigeen goobta waxyaabaha ay dahay dhaqanka u ah dadka Soomaaliyeed taariikhda wadanka cunooyinka u gaarka ah Soomaalida iyo waliba qaar ka mid ah ciyaaraha dahay dhaqanka Soomaaliyeed gudoomiyaha jaaliyada Soomaaliya dalka Suudaan Cabdulla Xasan Xuseen Fadiilatu oo ah muwaadin inta badan xil ka saaray ilaalinta dhaqanka Soomaalida kaalin weyn ka qaatay bandhig dhaqameedkani ayaa sheegay in goobta ay ku soo bandhigeen waxyaabaha uu caan ku yahay dhaqankeena suuban runtii jaaliyada waxay u taagan tahay in mar walba ay muujiso dhaqanka wanaagsan ee suuban ee Soomaaliya ay leedahay taas ayayna ahayd tan nagu sababtay hadaan nahay hoggaanka jaaliyada annagoo la kaashanayna safaaradda Soomaaliya dalka Suudaan inaan mar walba aan diyaar u ahaano arrimahaas oo kaleeto waxaana runtii mahad iskale dhammaan jaaliyada Soomaaliyeed oo ka soo qayb galay fanaaniintii ee joogay magaaladan iyo dhalinyaradii soo bandhigay dhaantada aad iyo aad ay u mahadsan yihiin dhamaantood marka kale u qaybsanaa warfaafinta safaaradda Fiido Maxamuud Fiido ayaa shacabka Soomaaliyeed ku booriyay meel walba ay joogaan in dhaqanka Soomaaliyeed ay soo nooleeyaan waxaan habeenkan caawa sharaf inoo ahayd inaan ka qayb galno habeen dhaqameedkii ay ka qayb galayeen 86 dawladood oo ka kala socda caalamka intiisa kala duwan kuwaas oo soo bandhigayay qof walba ama wadan walba dhaqanka uu leeyahay waxaana ay qof walba ama dal walba soo bandhigay wixii uu hayay anagu bandhig marka koowaad walaabaha la soo bandhigay sidoo kale waxa la soo bandhigay hidaha iyo dhaqanka iyadoo halkaasina ciyaar dhaqameedkii lagu soo bandhigay tan oo qayb ka ah dadaalka ay dawladda Soomaaliya wasaaradda warfaafinta iyo dhaqanka ay ugu jirto in ay ka qayb qaadato ama dhaqankeena Soomaaliyeed caalamka intiisa kala gaarsiiso habeenkan caawa marka sharaf inoo tahay qof walba oo ku nool dalka dibadiisa waxa ku waajib ah inuu ilaaliyo dhaqanka dalkiisa Soomaalida ku nool Suudaan waxay Soomaalida kale ugu dhow yihiin in mar walba ay ilaaliyaan dhaqankeena suuban ee Soomaaliyeed Yuusuf Maxamed Macalin Kashmiir raadiyaha telefishinka qaranka Soomaaliyeed caasimada Khartoum ee dalka Suudaan